السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخياري كسر دوادا جورناليست كنا كلام عن تشوع ميديا. فضلا حدي أن جوكتنا سي شرقرية سي أصحابتنا مركو جارو أي نوغوس وبيران. إن وحرنا هرت مركو كواد أن إرادو إن كل عام وأنتم بخير. ما أنتم بشوا بشو كواد بش جنوري كود بش جنوري لبا يكون إلى بي لباتن ومالين سبتية إن waxaan rabnaa inaan maaragtaa qodobkan waa muuqaalkeenii labaad waxaad maaragtaa ku faahfaahin doonaa ama wax yar aan dul taagni doonaa daqiiqatayn waxyaabaha ku saabsan ama maaragtaa sida reer galbeedka iyo farmaajo ay isugu dhacsan yihiin aanu ku bilowno farmaajo waxaan ogeyn laba habeen ka hor inay goor maaragtaa saqdhaxa xilli annagoo ay noo tahay Soomaaliya ama magaalada Muqdisho inay maaragtay soo saareen xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda qaybteeda Afrika haweeney u hadashay ay soo saartay tiri waxaan la hadlay farmaajo oo waxaan u sheegay inuu maaragtay ra'iisul wasaaruhu ku garab siiyo shirkiisa shirka maaragtay u qabanayo maamul goboleedyada iyo oo looga hadli doono ama looga hadlayo doorashooyinka maaragtay sanadka dib u dhaca ku jira haddaba hadalkaas qayaxan hadalka fasiraadiisa wax kala maahan farmaajo maadaama uu warqad soo saaray habeenkaas habeenadii ka horreeyay uu yiri roobla ayaa waxaan ka qaaday ee maaragtay xayiraad ku sameeyay oo kadib markii musuqmaasuq lagu helay soo asagu sheegay maaragtay nimanka la yiraahdo waxay ogaayeen maaragtay in xayiraadaas ka qaad fasiraadeed wax kala ma xayiraada ka qaad si maaragtay ra'iisul wasaaruhu oo shaqadiisa si habsami leh ugu wato adigana qayb ka noqo ku garabsi hanaanka maaragtay geedi socodka doorashooyinka halkaasna ha ka yimaado maaragtay adwaa la ku roon yahay heshiis doorasho loo wada ogol yahay inta ugu badan dadkay ogol yihiin haddaba halkee iska qoomeen marka farmaajo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka waxaan ognahay farmaajo dhowr sano ka hor inuu heshiis la galay ama heshiis saddex geesooda uu la saxiixday hogaamiyaasha Eritrea Ethiopia Isaias Afwerki iyo Abiy Ahmed inuu heshiis kula galay heshiis maaragtaa is afgarad oo ah mid military ku saabsan mid dhaqaale ku saabsan nooc walba leh inuu la galay halka Mareykanna wuxuu ku bariyaba asagoo la saxiixay heshiiskaas sababtoo Mareykanku waa siyaasadda hoggaanka siyaasadda caalamka ama dhaqaalaha hoggaanka caalamka ama hubka maaragtaa hoggaanka caalamka cid walba sidii ogtahay haddaba maadaama uusan Mareykankiiba uu awood isbidaya aan laga talagelin heshiiskan la saxiixanayo ayuu tartan sidaas lamada tartanna uu ka jiro Afrika oo China uu fadhiyo tartan dhaqaale iyo tartan ciidanba uu kula jiro ayaa maaragtaa wuxuu u soo jeediyay Abiy Ahmed waxaan ogeyn inuu maaragtaa u soo jeediyay markii hore maadaama odagii dhammaay barnaamijkan uu watay Ethiopia uu yahay wuxuu soo jeediyay inuu barnaamijkan kansalo ama uu maaragtaa asaga la hoos keeno maaragtaa heshiiska saddex geesoodka ah saddexda wadan ay kala saxiixdeen Abiy Ahmed uu ku gacan saaray Abiy Ahmed waxa lagu kiciyay adwaa la ku roon nimankii Tigray ahaa watii dagaalka maaragtaa xasuuqa iyo barakaca iyo burburka Ethiopia horseeday waatu ilaa hadda maanta uu ka socdo sidaas la mid ah Isaias Afwerki nin waxa weeye wadankiisa uu xiran yahay oo keligii waa kali taliye fursad Mareykanku waa ku waayay way ka soo wareegeen ninka labaad ay cadaadis ka saareen ama tunjilaaca ay bideen ama u jilicsanba waa maaragtaa waa farmaajo Soomaaliya hogaamiya farmaajo waxay u soo bandhigeen in uu ka laabto hadduu alla ku roon yahay heshiiska saddex geesoodka uu Mareykanka waxba ka ogeyn farmaajo afqayaxan ayuu ku diiday hase ahaatee Mareykanka wuxuu u ballanqaadiyo Ethiopia maaragtaa uu ka soo waayay Eritrea uu ka soo waayay hase ahaatee heshiiskaas wuxuu yahay wax kala maahan farmaajo wuxuu yiri waxaad ganacsigiina ayaad keensan kartaan dalka idinkoo wax canshuuraha linka qaadeen oo canshuur dhaaf lidin sameyn doono Mareykanka saas ayaan kugu bedelayaa yiri laakiin anigu ka bixi maayo marnaba suurtagal ma aha inaan ka baxo hadduu alla ku roon yahay heshiiska saddex geesoodka oo la saxiixday dhowr sano ka hor Isaias Afwerki hogaamiya Eritrea iyo Abiy Ahmedka lagu muransan yahay dib u soo laabashadiisa madaxweynimo ee Ethiopia farmaajo qodobkaas ayuu istaagay hase ahaatee ballanqaadkaas uu meelaha kale uu ka soo waayay Mareykanka ayuu ballanqaaday inuu canshuur dhaaf u sameyn doono maaragtay adwaa la ku ganacsiga adwaa la ku kambaniyada Mareykanka inuu dalka u kansado nooc doono u kansado
wax canshuurana aan laga qaadi doonin saahate weliba loo ilaalin doono oo maaragta hadduu alla ku rooyo maraykanka wuxuu kelmaddaas u gartay yasmo inaan ku soo jeedo maadaama ninka uu maaragta qolof weyn yahay maraykanka oo dowladdaas ballaaran oo xoog leh ay tahay waxay istiri nin maaragta ninkan maraykanka asagana markii hore waxaad ogtihiin midda kale xataa inuu citizen hore yahay oo nin maaragta iska 2019 oo iska celiyay baasaboorkii maaragta hadduu alla ku roon yahay dalkaas ayagu intaas oo dhan rajeynaya oo haddana waxay u fahmeen kelmadii ahayd anigu ka bixi maayo maaragta heshiiska saddex geesoodka ah waxa idin siinaya canshuur dhaaf ayay waxay u fahmeen maaragta hadduu alla ku roon yahay hoos u dhac dowlad ahaan ku imaanaya ama siyaasad ahaan hoos u dhac inay ku imaanayso maraykanka marka waa sababaha uu maaragta farmaajo uu ugu tumanayo hadduu alla ku roon sababtoo ah sanadii xilliyadii hore maaragta intii sano 5 sano farmaajo xafiiska joogay suurtagal ma ahayn lamana soo saari jirin maraykanka kuma soo saari jirin warqadaha maaragta siyaasadda ama heerkaas la gaarsiisano canaanta ama qayaxan oo xataa diblomaasiyadda xataa ka qayaxan ama ka arada asxaabay intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa kilibkeennii yaraa oo koobnaa ee isqoomidda maraykanka ama reer galbeedka uu maraykanku tun weyn yahay iyo farmaajo ama heshiisyada maaragta saddex geesoodka ah Ethiopia meesha la yiraahdo Eritrea iyo Soomaaliya maaragta mar kale waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan haddaad nala joogteen na sii share gareeya si asxaabtaas kale oo muuqaaladana gaari doono ay noo soo raacaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu